goortan daawadayaal mar kale waa shan dhacda iyo shaacinta alool taariikhdu waa 24 August 2022 duca qabayaal mar kale soo dhawaada. Turkigu wax shuruuda oo hordhaca kuma xidhayo wadahadallada uu la gelayo dowladda Suuriya. Dowladda Turkiga ayaa mar kale u eeg mid hoos u dhigaysa xiisadda u dhaxaysa iyaga iyo dowladda Al-Asad. Hadalka wasiirka arrimaha dibadda Mevlut Cavusoglu ayaa calaamad u ah sii qaboojinta Ankara, taas oo in badan ka duwan mowqifkii Turkigu ku taagnaa muddo 10 sannadood oo cadaawad joogto ah. Turkiga ayaa taageera falaagada ka dagaalanta Suuriya oo ka dhan ah madaxweyne Bashar al-Assad ku dhowaad 11 sannadood oo khilaafa, waxaana labadan dowladood xiriirkoodu gaadhay heerkii ugu xumaa ilaa ay isu jareen xiriirka diblomaasiyadeed. Siyaasadda Turkiga ayaa iyadoo taasi jirta haddana mar walba naasnuujinaya xiriirka dhexdooda ah, waxaana jirtay madaxda sirdoonka labada dhinac in ay lahaayeen xiriir joogto ah. Waxaa hadda ku soo biiray xiriirkooda faallooyin dhowaan ka yimid madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo soo jeediyey in loo dhaqaaqo ka qaybgalka siyaasadda, isagoo ka digay wixii danahooda dhaawacaya iyo mustaqbalkooda, una soo jeediyey in ay ka wada shaqeeyaan heshiiska dhexdooda iyo horumar iyo wuxuu ku tilmaamay wanaagga labada dhan. Xiriirka Turkiga iyo Suuriya ee soo wanaagsanaanaya ayaa loo badinayaa in uu sabab u yahay Ruushka. Waxaynu ognahay in labada madaxweyne ee Ruushka iyo Turkigu ay ku kulmeen caasimadaha Tehraan iyo Moscow. Dabcan arrimaha ugu waaweyn waxaa mar walba ka mid noqonaya xaaladda Suuriya. Ruushka ayaa daneynaya in uu hagaajiyo saaxiibtinimada Turkiga iyo Suuriya, iyagoo labaduba yihiin laba dal oo isaga ka agdhow, markaasna dan ugu jirto in saaxiibadiis saaxiibo ahaadaan. Arrintan ayaa saameyn weyn ku leh siyaasadda arrimaha gudaha Turkiga. Waxaa gudaha u jooga Turkiga malaayiin qaxooti ah oo kasoo jeeda ama kasoo barakacay Suuriya. Wuxuu Turkigu aada u daneynayaa in uu dadkaas u celiyo Suuriya inta aan la gaadhin doorashada madaxtinimada Turkiga oo dhacaysa bartamaha 2023. Haddaba si uu taas u helo, wuxuu wataa qorsho ah in uu gudaha Suuriya ka sameeyo meel nabad ah oo u dhow xuduudka labada dal. Goobahaas oo uu sheegay mar uu sharaxaad ka bixinayay inay rajeynayeen in ciidamo qaramada midoobay amaba kuwa Ruushku ay damaanad qaadaan oo ay qaxoontiga halka ku ilaaliyaan, isagoo aan ku cadfurin oo aan digniin goob dagaal ah geynin qaxoontigana. Danaha dhinacyada kala duwan ayaa dabada ka riixayo hareeraha kaga jira in ay heshiiyaan Suuriya iyo Turkiga oo colaadoodu ahayd mid soo jiitamaysa. Waxaana si weyn arrintaa uga odayeynaya uga shaqeynaya madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Haddana aynu u gudubno dhinaca Shiinaha. Wasaaradda difaaca ee Taiwan ayaa sheegtay in 20 diyaaradood iyo 4 markab oo uu leeyahay Shiinuhu ay galeen hawadeeda iyo biyaha ka agdhow Taiwan, iyadoo Beijing ay sii waday dhaqdhaqaaqa militari ee u dhow jasiiradda. Shiinaha ayaa dhoolatus ka waday meel u dhow Taiwan oo ay ku andacoodeen inuu yahay dhul Shiinees, inkastoo Taiwan si weyn uga soo horjeedsatay tan iyo horaantii bishii kadib booqashadii ay jasiiradda ku tagtay afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi. Falanqeeyayaal badan oo heer caalami ah ayaa sheegay in Shiinuhu qorsheynayo inuu xoog kula wareego Taiwan, balse waxaa jirta in Beijing ay hore weerar hanasho ah ugu qaaday Taiwan, kaas oo ay ku guul daraysatay. 1954 iyo 1958 ciidamada Beijing waxay weeraro ku qaadeen Taiwan. Waxaa labada goorba u suurtageli waayay in ay qabsadaan jasiiradda. Sababta oo dhowr midab loo yeelo, dhowr turjumaannimona laga bixiyo, ayaa waxay u badan tahay in waqtigaas Shiinuhu aanu lahayn dhaqaalaha iyo awoodda ciidan ee uu maanta leeyahay. Waxaa hadda Shiinuhu cabsi weyn ka qabaa, diyaargarow badanna uu ka sameynaya si aanay ugu dhicin in uu mar kale weeraro Taiwan oo uu ku guuldaraysto, kaas oo lafjab iyo hanjab qarannimo ku noqonaysa Beijing. Markaas si aanay taasi u dhicin, wuxuu sameynayaa abaabul badan iyo diyaargarow fara badan oo sannado ama qarniyo qaadanaysa si marka dambe ee uu u jeedsado weerarka Taiwan
aanu sinaba ugu guuldaraysan. marka waxaa la eegayaa in hadda ruxaankan badan iyo ciidamadan uu u diraayo marba biyahooda waa tijaabo kaba qayb ah diyaargarowgiisa ciidan. mar kasta oo uu diyaarad diro ciidamadiisu waxay eegayaan bal qaabka ay u falceliyaan, u jawaabaan, usoo diyaargaroobaan inta dhaqsaha daqiiqadaha sakanada ilbiriqsiyada ay ciidanka Taiwan kusoo howlgalaan. marka waxaa la odhan karaa xog ururin ayuu sameynaya. sidoo kale marka uu markab jiro ciidamada badda ee Taiwan bal halkay joogaan, maxay sameynayaan, haddaynu sidaa sameyno maxay sameynayaan, haddaynu intaa jirno maxay sameynayaan. mar walba xog ururin ayuu sameynaya. marka xog ururintan oo waqti qaadanaysa ayaa waxay u wajahaysaa in uu isu diyaarinayo goor ee ahaataba in uu weerar ku qaado Taiwan. waayahay, haddana aynu ku bilowno qaybtii halxidhaalaha iyo mahadnaqa. naga raali ahaada, shalay toole barnaamijkii kumaanaan soo darin, waqtigoo nagu yaraa awgood kumaanaan soo darin halxidhaalihii sidii aad nooga barateen. waxa aanu maanta idiin haynaa mid dhakafaar ah. waxaa inoo soo diray walaalkeen axmed shukri axmed oo jooga caasimadda Sool, laascaanood iyo Soolba aad iyo aad baan u wada salaamaynaa dhulkii garaadada. wuxuu yidhi waxaa lay iibsadaa cuntada balse weligee layma cunin. adiga cuntada kama fogi, cuntaa lay iibsadaa haddana weligee layma cunin. waa wax cajaayib ah. markaas bal maskaxda ka baadha ayaanu idin leenahay oo dhinaca commentiga noogu soo jawaaba. daawadayaal, daawashadiina waa sababta aanu u hiigsanayno horumar ballaaran. mar walba fadlan waxaan idinka codsanaynaa in aad barnaamijka sheergaraysaan ood asxaabtiina la wadaagtaan, iyo in haddii aanad nagu taxnayn oo hore nooga mid ahayn inaad nagu soo biirtid. nala joog baanu ku leenahay daawada. waayahay, xogtii barnaamijka shan dhacda iyo shaacinta nool ee maanta waa naga intaas. inta kulanka xiga aynu ku kulmi doono gebi ahaanba waxaanu idinkaga tegaynaa amaana allah.